shacabka ku nool gobolka Togdheer ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen sahminta shidaalka ee Soomaaliland sida warbixintaniba Muuse Axmed inuu uga soo diray Burco iyadoo markii ugu horeysay dalka Soomaaliland laga bilaabay sahminta shidaal baarista ayaa waxa ku kala aragti duwanaaday bulshooyinka gobolka Togdheer iyagoo ay qaarkood tilmaamayaan talaabo xagga horumarka loo qaaday kuwa kalena ay naqdinayaan isla markaasna ay meesha ka saarayaan in aanay munaasib ahayn waqti xaadirkan shidaal la soo saaro kuwaasi oo aanay aqoonsi la'aanta iyo abaaraha dalka ka jira waxaana saaka marafaar kala dhex qaadnay bulshooyinka ku dhaqan magaalada Burco waana kuwan iyagu raygooda cabiraya aan ka taageeraya shidaalka iyo horumarka dalka halkan dadkan ka hadlaya had iyo jeer anaga halkan leh meel lama kala laha qof walba ka galbeed guntii dagay ka bari dagay waa ka dhaxaysa marka waxaan u lahaa odayaashan TV-ga 10 maalin walba cuna wax walba iska duubaya hawayaan waa laga gudbay fikirkayga anigu hadaan ka dhibto nimanka shidaalka baaraya waxaan u haystaa inay dhasarcaatay oo shidaal la baaray shidaalku waa la yaqaan halku ku jiro Soomaaliland laba meelood buu kaga jiraa meel waa gobolka Saaxil meelna waa gobolka Saraal labada meeloodna way calaamadsiin Mareykanka shidaal la baaraya ma jirtay macdan baa la urursanaya dadka beenta laga daayo iyo khiyaaliga laga shaqeynayo arrinta shidaalka fikirkan ka qaba waxa weeyaan arrinta shidaalka iyo mashaariicda kale ee farabadan ee horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku yimi waxaan leeyahay waan taageeraynaa waxaanu leenahay haddaanu nahay dadka deegaanka Burco iyo gobollada kale Soomaalilandba inta aqoonyahanka iyo inta waxgaradka wixii horumara ee dalka u soo kordha ee mashaariicdaas ka mid yihiin dekada iyo airportka iyo maxaan dhahdaa shidaalka waa mashaariic horumareed arrimaha shidaalka waxaan ka qabaa fikradeyda wax u soo kordhay wadanka iyo dadka iyo dayarta tahriibaysa wadanka uga socota wax la'aanta iyo shaqo la'aanta inay wax badan ku soo kordhin doonto insha Allah ta'ala way dhulkooda ku nagaan doonaan oo khayraadkiisa ay la soo bixi doonaan sida ayaan ka qabaa arrimaha maanta waxaan ka hadlayaa anigoo Caaqil Faarax Xuseen Gaabusha shirkadda la leeyahay shidaal baaris bay ka wadaa gobolka Oodweyne Daadmareed waxaan u sheegaynaa inaanay wax halaaliye wax ka jiraan wax shidaal la ilaa jirin iyadoo abaar ay jiraan oo dadka xooluhu ay ka dhamaadeen oo xooluhu ay ahayn gaabka dadka kala haya maantana ay dadkii xooluhu ka dhamaadeen waxaanu doonaynaa dadka iyo in loo qabto in wax loo qabto ayaanu doonaynaa in riwaayad kale oo dhagax iyo dahabka iyo dheemanta la guranayo waxa meesha lagu ogay waa loo geeyay shidaal ku jirin meesha habarta indhaha og marka hore haddaan ka hadlo bointigayga shidaalka iyo macaanta soo kordhay dalka aad baan soo dhaweynaya fikir ahaan iyo horumarka ay samaysay dawladda Soomaaliland Axmed Silaay madaxda ka yahay aad baan soo dhaweynaya waxay la tahay wax shidaal imka laga soo saaray dhulka inay jirin ee hawlo kale iyo macdan kale ay tahay oo dadka lagu jahwareerinayo hadhowna waxay noqonaysaa waxaan sal iyo raatoon lahayn saaminta shidaalka waxaan u arkaa anigu arrimo siyaasada oo lagu guranayo muxuu ahaa wadanka macdanteeda ma dal alla aqoonsiyo macdan loo soo saaraa shidaal marka anigu shidaalka la soo saarayo waxaan u arkaa anigu arrimo lagu guranayo inteera macdanteena ugu jirto wadanka kana dhalinyaradu wadanku bixi wadanku waa anaga waxaanu doonaynaa markaanu aad iyo aad baan uga soo horjeednaa hal naga daayabaan u leenahay waxaan oran lahaa dalku uu fiican yahay shidaal laga soo saaro in macdanta dalka ku duugan la qodo in baltuunkan faraha badan ee inagu jira meeshay wax ku jiraan la xaqiijiyo anigu waxaan ka aaminsanahay inaanay wax shidaal baahay ee ay yihiin wax kale oo macnaha maldahan oo in macdan wax kale la guranayo rayigan madaxweynuhu keenay ee shidaalka gobolada in calaqad la geliyo aniga rayigayga lama muuqato waxay la muuqataa in wadanka horumarkiisa in la ogolaado calaqada iyo rabashka xuma taraan haddaan ka hadlo arrinkan shidaal baariska laga bilaabay goboladan bariga aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay waxa weeye waa wax loo baahnaa oo Muuse Axmed jaamacadda Afrika Caalamiga Afrika Kevin Burco